barasaabka gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa maanta waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka saaxil. Gudoomiyaha warbaahinta kula hadlay xafiiska maamulka gobolka saaxil ayaa waxa uu fariimo kala duwan u diray gudoomiyaasha degmooyinka gobolka saaxil iyo shacabka ku dhaqan guud ahaanba gobolkani saaxil, waxaana uu faray inay u diyaar garoobaan maalintani qaran ee 18 May. Gudoomiyaha arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa maanta ay taariikhdu tahay 2 bishii May aanu ku dhawaaqaynaa guddigii qabanqaabada ee gobolka saaxil. guddigaasi oo ka kooban 12 xubnood ayaanu maanta ku dhawaaqaynaa. laba guddi ayaa runtii jira oo guddi sare oo maxaan ku dhahay saddexa oo barasaabka iyo maayarka iyo maareeyaha dekedu oo isku duba ridi doona guud ahaan gobolka, iyo guddigan kale oo halbowlaha koowaad u ah maxaan ku dhahay Berbera maadaama ay tahay xaruntii weyneyd ee gobolka saaxil oo ah meesha koowaad ee culayska ugu weyn ee diyaargalowga ku dhacayo. goobaha kale sida Sheekh iyagana insha Allah annagoo ka guddi gobol ahaan hawlahooda iyadana la maamuli doono la eegayna. iyagana kolley guddigii degmada way sameynayaan in liiskoodii noo soo gudbiyaan qaabkii howlgelinayana waan maxaan ku leeyahay ka warsugaynaa insha Allah. degmooyinka kale Samadheera iyo Bullaxaar iyo degmooyinka kale gobolka mid walba iyagana waxaan leenahay degmooyinkii degmo kastaay maamulkeedu hay is abaabusho hana u diyaar galowdo maalinta qaran ee 18 May ee sanadka 2019 maxaan ku dhahay loo dalbaadegi doono. guddigan 12 ahi wuxuu ka kooban yahay waa Maxamuud Ibraahim Axmed oo maxaan ku dhahay barasaab xigeenka ee gobolka saaxil, iyo Cabdilaahi Xasan oo maareey xigeenka dekeda, iyo Cabdiraxmaan Aadan oo ah xogayaha maxaan ku dhahay dawladda hoose, Xasan Axmed Ibraahim oo ah isna maareeyaha haamaha shidaalka, Ibraahim Digaale oo ah isku duwaha wasaaradda waxbarashada, Caashe Xuseen Faarax oo ah isku duwaha diiwaangelinta sekada, Saleebaan Cabdiraxmaan Xuseen oo isna maareeyaha wakaaladda biyaha. 10 ayaan maxaan ku dhahay guddiga hawsha u culus u dhacaysa. waxaan rajaynaynaa oo idin rajaynayaa in hawsha la idin idmaday aad ka soo bixi doontaan oo aan kalsooni buuxda ku qabno muddada inoo hadhay idinkoo marka horeba qaybo badan oo idin ka mid yihiin ay hore si hawl gashay oo abaabulka ay ku jireen ee u diyaar galowga. waxaan hadda idin rajaynaynaa idinkoo kooxa oo saa isugu xidhan inaad maxaan ku dhahday noqon doontaan guddigii sida qiimaha leh waajibaadkoodu fulay. maalinta 18 May ayaa markii Soomaaliland ay xornimada kala soo noqotay dawladii la isku oran jiray Soomaaliya. waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, telefishinka Somali News, magaalada Berbera.